وقصة عبر قادة مدن موضوع يدنا وحاوي هي قدرت إلهي أو لغو سمرو تابعي قوين عروة ابن الزبير وحاوها نن عابدة عالمة وحاوها شخصية لياب له عروة وحا شيء أسماء بنت أبي بكر وحا أبوها زبير بن عوام وقتي وليد بن عبد الملك وماملك مسلمين تهيي أي وحا وعروة كدر بضي إنه كسو بوغد عاصمة دمشق عروة واو أخبري دربك أميرك وحاونا كأم بحي مقالة مدينة وحاو كهاستي ويل إن مديسة كمدة وآد الدائرة سلمركانا عروة آد جعلا انتي ودريقة كسي جري وحا أدن كيسا كدعي حنون كحماضي إلى ودمشق قرأي إساقو لقاضي أو أنسعون كرين بلسما يمحو الأنين markii waliid la kulmay uu ka xumaaday xanuunka curwa oo marti u haleelay waxa uu isugu yeeray dhakhtaradii Dimashq ugu aqoonta badnaa wuxuuna yiri dawa loo raadiyo xanuunka curwa haya dhakhtaradii waxay isku raaceen in lugta curwa uu ku dhacay xanuun aan dawo lahayn in la gooyo maahe laakiin waliid arinta uma bogin wuxuu yiri sidee bay u dhacday curwa in uu noqdo isagoo laangara ah ama aan u dhameystirnayn lixdiisii lixaad isagoo reerkiisa badqab kaga yimid laakiin dhakhtaradu waxa ay u sheegeen in haddii aan hadda adinka la goyn uu xanuunka sii fidi doono dhimashana uu keeni doono أميركي وركي دختردا أيو أشياء عروة إسقو كلا تشانيا عروة هذا البدن ما أورانو حجري إلى هيبة مهدله كي دختردي أصو ديار جروبين إن أي أدين كجران وحي كويرة هذين عروة si xanuunka kaaga yaraado aan dawada marqadka la yiraahdo ku cabsiino curwa uu diiday in xubin jirkiisa kamid ah la jaro isagoo aan dareemin waxay yiraahdeen hadda qamri aan ku siino si dareenkaagu u tago curwa uu la yaabay waxa uu yiri sideen qamri u cabaa iyadoo Allah tabaaraka wa taala kitaabkiisa ku xaraantinmeeyay dhakhtaradii hadda sideen ku galnaa ay ku yiraahdeen رحمة وفضيلة كالماس كالدر الثمين عروة حاويري صلاة بانقليا مركان صلاة دقارو سيداد ربطان إيالا عروة وحاوها مركو صلاة كجرو مدآن دريمين أجمل الدنيا إذا عشنا بها متراحين salaadii buu galay markii uu sujuuday ayay lugtii hilibka ka dhameeyeen kadib intay miishaar soo qaateen lugtii ay ka gooyeen isagoo aan mar kaliya dhaqaaqin lugtii ayaa dhiigii joogsan waayay intay saliid kulul soo qaadeen ay lugtii u geliyeen dhiigii wuu istaagay laakiin curwa waa uu mirbeelay iyadoo xaaladaasi taagan tahay ayaa amiirkii waxa uu yimid war naxdin leh oo ah in wiilkii yaraa ee curwa watay in uu fardihii madaxtooyada dhaxgalay kadibna uu faras biqleeyay ama uu haraantiyay wiilkiina uu dhintay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun amiirkii aad buu uga murugooday dhibaatooyinkan curwa isu raacay markii curwa miirsaday amiirkii waxa uu ku yiri ilaahay ha ka caawilo adinka lagu gooyay curwa waxa uu yiri ilaahay baa mahad leh amiirkii waxa uu yiri wiilkaagii waan kaaga tacsiyeenayaa ilaahay bedelsan ha ka siiyo curwa waxa uu yiri ilaahay baa mahad leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wiil buu isiyay mid buu iga qaatay afar waaxood buu isiyay mid buu iga qaatay haddaan bukooday imisaan caafimaad qabay hadduu wax iga qaatay imise ayuu wax isiin jiray
ilaahay waxaan weydiisanayaa in aan jannada ku kulanno. Curwa wuu roonaaday, waxa uu ku socday ul. Maalin buu soo galay amiir Waliid. Waxaa la fadhiya oday da' ah oo wejiga nabar ku leh oo haddana indhala. Amiirkii waxa uu Curwa ku yidhi, odaygan bal warkiisa weydii. Curwa waxa uu yidhi, odayahow, maxay sheekadaadu tahay? Odaygii markan waxa uu yidhi, waxaan deganaa tog, aniga cid iga hodansan ma deganin halkaa. Aniga ayaa ugu maal badnaa, ugu carruur badnaa, ugu naaga badnaa. Habeen baa daad nagu soo dhacay, waxa uuna la tegay maalkii, carruurtii iyo xaasaskii. Waxaa waagu ii baryay anigoo haysta wiil yar iyo awr. Awrkii baa buubay ama cararay, waxaana damcay in aan soo qabto. Anigoo aan wax badan ka daba ordin ayaan gadaasheeda ka maqlay qaylo. Mise waa wiilkii oo waraabo sito oo madaxa afka gashtay. Waxaan damcay in aan ka rido, laakiin markiiba waa uu kala goostay. Waan awoodi waayay inaan ka rido. Waan soo noqday, awrkii baan ka daba cararay, waan soo gaaray. Hase yeeshee waxa uu igu dhuftay nabar wejigaygii dhaawacay, indhihiina iga riday. ما أجمل الدنيا